marka waxa karaanka u yeela qofka bini aadamka ah waa wax barashada waay waxa karaanka u yeela umad karaan la hadaad aragtana ama qof karaan la hadaad aragtana wax barasho la'aan ku dhacday ma aha qofka meel bula yahay iyo arag ula yahay iyo jirkiisa meel maqan tahay waxaas mushkiladda ma mushkiladda farqiga keenta waa wax barasho iyo wax barasho la'aan waay marka inaynu fahamno mushkilad ba hadaan qabno xalkeedu waa wax barasho ummad hadda aragto horumartay dadkeeda wax bartay dadkeeda karaan yeeshay iyo karti ma inay burburan yihiin inay dheer yihiin inay xoog badan yihiin inay ma inay indho iyo lagu qabaan ma aha macnaheeda waa inay leeyihiin wax barasho karaankooda iyo kartidooda iyo shakhsiyadooda inta qaabaysa ka dhigta wax naafica ka dhigta qofkana naafica ka dhigta ummadan ummad naafica ka dhigta waxaan aad u bogaadinayaa in aad samaysateen naadi idinku aad leedihiin oo ujeedadiisu ay tahay in idinku isbarataan is-hogaamisaan is-aqoonsataan iskaalmaysataan kadibna aad ummadiina iyo dalkiina iyo dadkiina aad kaalmaysaan foundationkan hadda idinka idin kaalmaynayo qof ma aha waa dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo waliba dan kale isugu tagay yaa go'aan waxay ku gaareen is-aqoontaas iyo kulankaas iyo awooddaas iyo kartidaas ay yeesheen inay idinka wax idin taraan marka ujeedada aniga aan fahamsanahay waxa weeye inaad idinku wax noqotaan si aad wax u tartaan inta kaleeto ee idin baahan ama idin baahan doonto waxaan aad idinkula dardaarmayaa waxa ugu muhiimsan ee qofka bini aadamka looga baahan yahay ama qofka idinkoo kaleeto ah waa inuu kalsooni qabo waa inuu kalsooni ilaahay uu ku qabo subxaanahu wa tacaala ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإنه كلسونك قبل نفتيس dad aad u badan oo wax bartay qaarkood diinta garanaayo qaarkood wixii garanaayo waxa arkaysaa ay ka muuqato kalsooni darro weyn ay ka muuqato aaminsan inaan waxba heli karin haddii aan garab la siinin telefonkayga subax kasta waxaa ku jirta boqolaal fariimood dad dhahayo waa ogtahay inaan waxba la heli karin haddii aan garab la haysanin warkaas run miya haddii uu run yahay idinku wax ma aydan hesheen dadka marka inaad bartiin kalsoonida qofka inay tahay shayga ugu muhiimsan wuxuu ilaahay uu ku qadarayna inaad heli karto iska ilooba marka waa la wataa iyo hebela adeerkaya iyo ugaas hebela meel ii jooga iyo xildhibaankaygaasaan geynaya iyo inta haddii la dhihi lahaa hadda qabaa'ilkiina dad keensada adinka ma idin keeni lahaayeen ma idin keeni lahaayeen aniga uma malaynaya inay idin keeni lahaayeen haddii la dhihi lahaa xildhibaanadiina dad keensada adinka ma idin keeni lahaayeen laakiin waxaa idin keenay nidaam tartan loo galaayo oo tartankaas uu soo saarayo qofka munaasabka ah isagoo aan loo fiirinin qabiilkiisa iyo gobolkiisa iyo midabkiisa iyo meesha uu jooga aanan loo fiirin marka kalsoonidaas yaan aad iyo aad idinkugu boorinaya kalsoonidaas waxa ay abuureysaa iyo sida aad hadda wax ku barateen iyo duruufta aad samaysateen inaad iska ilowdaan heybta aan macnaha ku fadhin ee la yidhaha heybta qabiilka macno ay ku fadhisa ma laha meel ay ku geynaysana ma laha waana waxa meeshaan dhigay dadkeena ilaa ay iloobaan heybtii ka muhiimsanayd heybta ka muhiimsan waatee waa heybta islaamnimada
heybta ka muhiimsan waatee waa heybta dalkeena dalkaanaan wada leenahay ummaddaanaan ka wada tirsannahay qarankaanaan wada leenahay marka waxaan rajaynayaa naadigu inuu noqdo naadi ka shaqeeya sidii loo dhisi lahay hayb qaran waa dad isu tagay oo isugu tagay hayb ay wada leeyihiin oo ka weyn haybta shakhsiyeed iyo haybta qabiil iyo haybta gobol ka weyn waayo haybtaas marka inaan haysano waxaan jeclahay inaan mar kale bogaadiyo hormuud waxaan jeclahay hay-adaha kaleento iyo sharikadaha kaleento iyo cid allaaliyo ciddii isxilqaami kartoo dhan inay isu xilqaamaan bulshada inay garab istaagaan oo ay garab istaagaan intooda taagta daran inay garab istaagaan laakiin garab istaagaas inay ku muujiyaan jid la garanaayo oo dadka wax la siinayo iyo sida ay wax ku helayaan jid cad uu yahay jid hufan uu yahay jid daah furan uu yahay oo aanan ahayn habartay iyo ina adeertay iyo kana asaas ugu aanan ahayn qofka laalaabka wax ku helay marka uu shaqaynayo asna muxuu samaynayaa siduu ku yimid uu ogyahay sooma siduu ku yimid uu ku shaqaynaa laakiin qofka jidka toosan wax ku helay wuxuu ogyahay soomaalinimada walaaltinimada islaamnimada daahfurnaanta dadnimada inuu wax ku helo ogyahay marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in dadka kalena ay ku tallaabsadaan tallaabooyinkan iyo kuwo la mid ah haddii aan nahay annaga wasaaradda waxbarashada waxa aanu ballan qaadaynaa intii suuragal ah ee awooddanada iyo kartidanada iyo karaankanaga uuna gaarsiiyo in si hufnaana dadka loogu shaqeeyo sidoo kaleeto inaan garab istaagno kuwa dadka sida hufan ugu shaqaynayo oo ay ka mid tahay hormuud foundation ay ka mid tahay